aadan ugu faraxsanahay in ilaahay uu fursad ii siiyay caaw in xafladan aan idin kala soo qayb galo aadan uga walwalsanaa markii aan maqlay dad walaalaheen oo dhibaataysan dad dhinteen dad gaajo hayso dad gurigoodii iyo kisti yar ay haysteenba ay ka baaba'day caaw waxaan ugu soo talagalay in anigana aan ka qayb qaato dadka taakulaynta dhiibaayo waxaan rabay koodii in aan isku xil saaro $1 laakiin waxaan maqlay haddee ciyaalkaaga badbaadso iyo haddii aad dana leedahay ducaha lagugu daro iyo haddii dhib ku haysto ilaahay inuu kaa badbaadiyo marka aniga ciyaalaan leeyahay waa rabaa ciyaalkayga in la iigu duceeyo dhibaatooyin badanna waa ay haystaan marka badbaadaan u baahanahay marka waxaan aan isku xil saarayaa ilaa iyo 5,000 in aan ku taakuleeyo dadka walaalaheen ah dadka Soomaalida badanaa waxaan maqalnaa inay yihiin dad dhiig kulul dad dhib badan dad dagaal jecel dad iyaga xataa isdhibay laakiin intaas waxaan u maleynayaa inay tahay wax annaga aan iska dhaadhacsiinay oo annaga aan faafino oo buubuunino sababtaan saas u dhahay waxay tahay dadka markaan la kulmo oo Soomaali ay ka waramayaan waxa ay iiga sheegaan way ka duwan tahay waxa annaga aan iska sheegno xalay markaan magaalada ku soo laabtay waxaan tagay waxaan lahay xaflad oo lagu soo dhaweynayay gabar oo ku dhalatay Honduras oo ka dhalatay dad la dhaho Garifuna oo dad black indigenous oo dadkii wadamadii Afrika laga soo xaday oo Brazil iyo meelahaas la keenay laakiin hadda degan Honduras badda agteeda ay ku nool yihiin waa dad wili la gumaysto oo la dhibaateeyo oo lagu xadgudbo intay marka waxay u imaatay in sidii dadkeenan madowga ah oo meelaha badan ku dhibaataysan aan isku wada kaashan lahayn oo gacanta isku qabsan lahayn oo aan ka shaqayn lahayn sidii aan isku badbaadino soo xafladda markii la furay ani iyadaan ahayn professorad oo jaamacadda joogto iyadana gabar madow ah xafladda xiriiriye ka ahayd iyaday koodii ku bilowday oo waxay tiri ilhaan maxaad ku salaami lahayd caawo districtigeedii joogtaa waa kana iyadina xafladan daraadeeda ay u soo laabatay oo ay sidii diyaaradda uga soo degtay waa gurigeeda xataa meena ku leexan xafladii imaatay marka waxay tiri waxaan ku salaami lahay in aan maanta xasuustay markii aan arkay dadka Soomaalida Minnesota ku nool in dhaqankii rasmiga ahaa oo lagu yaqaanay dadkii Afrikaanka ahaa oo waagi hore jiri jiray oo iskaashan jiray oo iswalaalaysan jiray oo dhaawaca qof maanta uu dareensan yahay kan kaleetana uu dareemi jiray in Soomaalida aan maanta ka arkay Minnesota kaliya uu ku dhex nool yahay fiiriya hal maalin kaliya ay gabadhaas magaalada joogtay waxay aragtay dadka Soomaalideena sidii ay ku nool yihiin waxa laga yaabaa maybe qof oo dukaan leh ama qof jidka maraaya ama maama ciyaalkeeda la ciyaaraysa inay wareysatay waxay dareentay dadkan oo qaxootiga ah oo wadankan waqtiga yar ku nool intaas dukaamo sida ay ku dhisteen inay tahay inay iyaga is taakuleeyeen in xaafadaha aan degannahay oo aan ku degannahay sida wanaagsan oo aan loogu xadgudbin ay ku dhalatay because anaga istaakulaysanay marka anigii intaas ay igu salaantay in ay ii sheegto dadka aan ka dhashay in ay yihiin dad dhiig fiican dad walaaltinimadoodii aanan ilaawin dadka saasay nooga waramaan